maxkamadda gobolka Maroodijeex ee Hargeysa ayaa fadhiga yeelatay Sabtida 11 January waxay xadhig hal sano iyo ganaax lacageed oo dhan 3 milyan oo lacagta Soomaaliland ku riday tafaftiri telefishinka oo cable mudane Cabdiqaadir Suleymaan Cuday oo muddo 2 bilood ku dhow ku xidhan xarunta dambi baadhista Soomaaliland ee Hargeysa. maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa sheegtay in tafaftira lagu helay eedeymiye xafiiska xeer ilaalinta ku soo oogtay oo ahaa in telefishinka oo cable uu baahiyay warbixin ku saabsan cabasho ay diyaaradda Fly Dubai ka muujisay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa iyo in ay waraysi la yeesheen Sultan Abubakar Cilmi Wabar oo jabhad ka samaystay gobolka Awdal. ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier ayaa xadhiga suxufi Cabdiqaadir Cuday ku tilmaamay sharci darro. Soldier waxa ay sheegtay in laga diiday in damaanad lagu sii daayo tafaftira Cuday waxa aanu xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay ka baxday heshiis ay hore u la gashay ururka suxufiyiinta oo ahayd suxufiga wax laga tirsanayo dambiga lagu soo oogo isagoo oo dibadda jooga. damaanadii waa la naga diiday runtii Cuday in aanu ku sii deena aanu doonaynay hase yeeshee maxkamaddu waxay naga aqbashay talaabadii labaad oo ahayd tay doonaysay xukuumaddu in telefishkaasi la xanibo isna taas oo arkay runtii inay tahay arrin labaad oo saameyn ku yeelanaysa runtii mihnadii saxaafadda. maanta ayuu go'aankii gaadhay dacwadii dhageysigeedii muddadaasi 2 bilood oo soo socday waxa maxkamaddu ay ku xukuntay hal sano oo xadhiga iyo 3 milyan oo ganaax. runtii urur ahaan waa soo dhaweynay xukunkaasi sifa kasta markii hore ha ku qaldanaado ama sifa kasta ha loo maro qaldane xukunka waa soo dhaweynay waxaananu runtii doonay inaanu marno nidaamka markaasi wariye Cabdiqaadir Cuday aan hawshiisaas ku dhameyn lahayn. dhinaca kalena gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland mudane Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto waxa uu sheegay in Soldier ay urur ahaan soo dhaweysay xukunka maxkamaddu soo saartay si kasta oo si qaldan loogu marayba laakiin markii ay isku dayday in ay xadhigaasi u iibiso saxafiga inuu xafiiska xeer ilaalintu xukunkaasi racfaan ka qaatay waxa aanu arintaasi ku tilmaamay tallaabo ay xukuumaddu culays ku sii saarayso kiiska si uu saxafi Cuday muddo dheer u sii xidhnaado. gudoomiye Xuuto waxa uu xukuumadda ugu baaqay culayska ka qaado tafaftira Cuday oo uu ka deeriyay xaaladiisa caafimaad waxa aanu ballan qaaday in Soldier ay dadaal ku bixin doonto siday xorriyadiisii dib ugu soo celin lahayd. dhinaca kalena xisbiga wadan ee Soomaaliland ayaa dhankiisa si adag u dhaliilay xukunka iyo xadhiga tafaftiraha oo uu ku tilmaamay sharci darro cadaalad ka fog oo u muuqda xadhig siyaasadeed. aad baan uga xunnahay xukunka saaka ku dhacayna waxaanu aragnaa inuu xaq darro ah. Cabdiqaadir Cuday laatankii sano u dambeysay baada saxaafaddu ku jiray anigu xogogaal baan u ahaa shakhsiyadiisa waxaan filayaa ururka Soldier ee suxufiyiinta Soomaaliland hadday qiimeynta idaabta iyo akhlaaqda suxufiyiinta Soomaaliland bixin lahaayeen inay isaga siin lahaayeen qof runtii aad u dhowrsan oo idaab leh oo afkaaban buu Cabdiqaadir وياسر عبد الله يسرشكا codka bariga Afrika magaalada Hargeysa. si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaan geli channelka YouTube-ka ama dooro bogagga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka.